Dr. Mustafa Kamal Maxamuud Xuseen Allah u naxariistay wuxuu ahaa dhakhtar, suxufi, faylasuf, qoraa, cabqari, caalim iyo mufakkir u dhashay dalka Masar ayaa mar uu ka waramayay go'aankii ugu adkaa ee soo maray noloshiisa wuxuu yidhi sanadku markuu ahaa 1969 ayaa maalin dareemay xanuun aad u daran oo dhabarka iga haleelay. Waan nuuxsan kari waayay ilaa aan gaaray heer aan qayliyo. Dabadeed waxaa la ila cararay dhakhtar si uu xanuunka iga daaweeyo. Nasiib darro, dhakhtarkii wuxuu igu yidhi dhagax weyn ayaa kelida kaaga jira. Dabcan iminka ma hayno qalab aan u dhaadhicino kelida, mana la ikhtiraacin laser aan qaliinka u isticmaalno si halkaasi loogu burburiyo. Waxaa laga maarmaan ah in aad marto qaliin caadi ah, kelida lagaga furiyo si aan dhagaxa u soo saarno. Intaa kadib waxaan dhakhtarkii u sheegay in arrintaas ay khatar tahay, jirkayguna aan ku tijaabin karin qaliin caynkaas oo kale ah, naftaydan lagu biimeynayo. Waan soo laabtay anigoo ka cabanaya xanuun saa'id ah. Waxaan hore u soo qaatay dawooyin faa'iido buuran aan lahayn oo kaalmaati ah ama xanuun baabi'iye ah. Waxaan aaminay in xaaladayda caafimaad ay xun tahay oo aan waxba laga qaban karin. Waan istaagay, waan weysaystay, waan tukaday, waan ooyay. Waxaan bilaabay in aan Ilaahay baryo. Waan ducaystay aniga oo dhahaya Rabbiyow, ma awoodo qaliinka ay caawi oo xanuunka iga dulqaad. Markaan in badan ducadii akhristay, waxaa ii fududaatay in aan foorarsado. Waxaan isku dhiibay Rabbigay aniga oo yaqiinsan in Eebbe uu yahay midka maamula dhammaan unugyada jirkayga. Haddaba nus saac kadib waxaan galay musqusha. Waxaa iga yimid hal litir oo kaadi ah, ayna weheliyaan jajabis yar oo dhagaxaan ka samaysan, kuwaas oo miisaan ahaan aad u culus. Mar kale ayaan kaadiyay ilaa intii dhibneyd oo dhanna dibadda u soo baxay. Ilaahay ayaa u mahadnaqay. Waan neefsaday, dhidid fara badan ayaa iga yimid. Waxaan xaqiiqsaday in Eebbe iga aqbalay ducadii, waana bogsaday ama caafimaaday. Halkaa ayuu xanuunkii darnaa ee aan ka cabanayay ku dhammaaday. Dr. Mustafa waxa uu leeyahay waxaan dhacdadan ku soo xasuustay kelmad ay tiri gabar u dhalatay dalka Masar oo ku soo islaantay mar aan joogay waddanka Morocco. Waxaan hadalkeeda ka mid ahaa, dadka muslimiinta ah waxaa agtiina ahaada jawharad aadan ogaal u lahayn qiimaheeda, iyadoo tibaaxday in ducadu ay tahay waxa ugu weyn ee Alle laga baryo uuna ka ajiibo addoommadiisa. Taasi waxaa daliil u ah in Eebbe uusan hoojin addoon ilmeeyay, addoon u dhibaato sheegtay, addoon madaxa foorarshay oo Rabbigiisa tuugay. Fadlan walaal, adigoo mahadsan, muuqaalkan share dheh oo la wadaag walaalaha muslimiinta ah si ay ugu cimri qaataan. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii.